بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 92 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. رواه المحمدي في الأمالي والطبراني في الأوسط، والحديث صحيح لغيره. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 14 bishii saddexaad rabiicul awal sanada 1444 isla markaana waafaqsan 10 bishii tobnaad sanadka 2022. waxaanu ku jiray kitaabkeenii ugu magac daray almuntakhabu min saxiixi sunan nabawiya, baabkiisii saddexaad oo ku saabsanaa acmaalun tuujibu lisaaxibiha aljanna. acmaasha qofka sameeya ay sabab ugu noqonayaan inay janno u waajibto. intayna darsigeena gelin, waxaan ka cudur daaranayaa 2 arrimood. qodobka koobaad, cashirkeennii shalay maalinkii axad ahayd ayna qaadanin naga baaqday, waa duruufo dacwo iyo mashquul baan ka soo gaari waayey. taa waan idinka raali gelinhayaa. wixii tabartaanada oo duruuftu noo diidin waan ku dadaalaynaa. qaybta kale, sabtidii cashirkaanu bixinay oo kii ugu dambeeyey waxaanu ku sheegnay taariikhda 14 baan nidhi. taa waa khalad bay ahayd, sabqulisaan. sabtida taariikhda islaamka waxay ahayd 12 bay ahayd. shalay oo axadana waxay ahayd 13. maanta waa 14 wey. maanta oo ithniina waa 14 bisha islaamka. sabtidiina waxay ahayd 12 bay ahayd. bisha October ee 10aadna 8 bay ahayd. saa darteed walaalaha qaarkoodna iyaga igu baraarujay way la soo hadleen 14. marka 14 ma ahayne 12 bay. marka maanta weeyaan 14. intaana waan ka cudur daaranayaa. intaa kadib waxaanu ku jiray acmaalun tuujibu lisaaxibiha aljanna. acmaasha u waajibinaysa ee saaxiibka sameeya janno sabab ugu noqonaysa inay u waajibto. ilaa dhowr xadiid baanu soo qaadanay. kanna wuxuu ka mid yahay axaadiitaas ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay qofkii camalkaa la yimaada inuu ilaahay subxaanahu watacaala jannada guri looga dhisayo iyo darajaad iyo khayr badan la siinayo. xadiidkan waxaa soo saaray alimaam almaxamili kitaabkiisa alamali ayuu ku soo saaray. sidoo kale alimaamu tabaranina fil awsat buu ku soo saaray iyo keyrkood. xadiidku waa xadiid saxiixun ligayrihi. wain kaana xadiidku khilaaf uu ka jiro oo aada laiskugu haysto, culimmadu qaar baa daciifiyeen, qaarna way saxiixiyeen oo saxiixun ligayri bay dhaheen. shawaahidiisa iyo asaga markii laisu geeyo duruqdiisa xadiid saxiixun ligayrihi buu noqonayaa. sheekh albani raxmatullaahi caleyh dadka saxiixiyey ee soo dhoweeyey buu ku jiray. marka 2 meeloodba uu ku saxiixinayo saxiixun ligayri buu leeyahay. qeybta koobaad waxaa weya saxiixu tarkiib wa tarhiib, raqamka xadiidka 5,000 ama 505 ayuu xasan kaga dhigahayaa. sidoo kale silsila saxiixa uu ku saxiixinayo saxiixun ligayrihi ayuu saxiixu tarkiib wa tarhiib ku sameeyey iyuu ku dhigaya 505 saxiixun ligayrihi buu leeyahay. silsila saxiixana sidoo kale uu ku saxiixinaya raqamka xadiidka 1892. saa darteed marka xadiidku waxaan leenahay xadiid haabita oo saxiixun ligayrihi awey. inta markaanu ka gudubno, macnaha xadiidkan uu xumbaarsan yahay muxuu yahay? bishaaro cadiima weeyaan, runtii aad iyo aad u qiimo badan, waana camal aada u sahlan wey. umuna caaisha waxay leedahay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: man sadda, ninkii awda oo buuxiya furjatan, meel bannaan oo safka ka bannaan ninka buuxiya, bana allaahu ilaahay wuxuu u dhisahayaa lahu ninkaas beytan guri buu filjannati jannada oga dhisahayaa. warafacahu kor buu ugu qaadayaa warafacahu kor buu u qaadi bihaa ficilkaa uu sameeyey, furjada uu owday oo uu buuxiyey, darajatan darajo kora ugu qaadayaa. allahu akbar. waa camal aad iyo aad u qiimo badan wey. wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam: furja, ninkii man sadda furjatan. furjo waxaa la yihahdaa safka meesha ka duleeshee ka banaan baa la yihahdaa, oo labada qof bayska u dhexeeya oo qof uu geli karo banaan ba furjo la yihahdaa. ama khalal ama meel banaan baa la yihahdaa.
marka meeshaa bannaan ninka buuxiya oo saf kusuusa khalal iyo meelo maaragtay gaaba usoo gelin buuxiya laba abaalgud buu ilaahay subxaana wa tacaala siinaya. qodobka koobaad janno ayuu maaragtay guri buu jannada oga dhisahayaa. qodobka labaadna darajo ayaa kor loogu qaadahayaa. idan labadaasuu helaya dalacsiin la dalacsiiyo kor in loo qaado darajo iyo guri in jannada looga dhisa labadaaba. xadiidka shawaahidda xoojinaysa waxaa ka mid a xadiidka cabdullah bin cumar radi allahu tacaala canhuma oo alimaam albazaar iyo keyrkiiba ay soo iyo ibn xibaan iyo keyrkoodba ay soo saarayaan. ba xadiidku wuxuu ahaa maaragtay khiyaarukum alyanukum manaakiba fi salaati, kuwa idinku khiyaarsan waa kuwa idinku garba jilicsan salaada dhexdeeda, garbaha dadka u nugleeya si safka usoo galaan. maxalushaahidkana waxa weye wamaa min khudwatin acdamu ajran min khudwatin mashaaha rajulun ilaa furjatin fi safi fasadaha. waa xadiidka xoojinaya weeyaan, oo macnaheedu ay tahay wamaa min khudwatin tallaabo ma jirto acdamuu ka weyn ajran xagga ajirka min khudwatin tallaabo mashaaha uu socday rajulu nin ilaa furjatin meel bannaan uu u socday fi safi safar dhexdeeda ka bannaanayd oo fasadaha buuxiyey. tallaabo ka ajir badan ma jirtuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tallaabada uu qofku intuu qaaday saf meel ka bannaan uu ku buuxiyey. idan waa xadiidka xoojinayuu ka mid yahay. sidoo kale waxaa ka mid ahaa inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka asna uu warinhayo maaragtay saxaabiga jaliilkaa bara binu caazib uu nabigu yidhi in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala aladiina yasiluuna sufuufa. ilaahay iyo malaa'igtaba waxay u ducaynayaan maaragtay dadka sufuufta xidhiidhiya aluwala sufuufta hore. maxalushaahidkana waa halkan soo socota wamaa min khudwatin tallaabo ma jirta axaba loogu jecel yahay ilallahi alla xaggiisa min khudwatin tallaabo yamshiiha uu soconaya alcabdu addoonka yasilu biha uu ku xidhiinayo safan saf uu ku xidhiinayo. idan axaadiidtaas oo dhan ikhwati filaahi waa axaadiidta xadiidkan xoojinaysa wey. idan safka ahamiyadda uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay bay ku tusinaysaa. marka inuu qofku safka bannaan oo hataa dadku lagu hadday aad u kala fogeeyeen intuu saa iskugu dhoweeyo uu buuxiyo waxa weeyaan fadli cadiima ayay leedahay. waa asbaabaha jannada lagu galay ka mid tahay inaad saf meel ka bannaan aad buuxisi, furjada aad buuxisi iyo khalalka iyo meesha ka bannaan aad buuxisi, darajaadna kor baa lagugu qaadi, jannadana waxa weeyaan guri baa lagaaga dhisahayaa. acmaasha ilaahay iyo tallaabada ilaahay ugu jecel yahayna weeye. tallaabada markii lagu leeyahay waxaa laga fahmaya safku inuu kaa horeeyey. safkaa kaa horeeya, meel bannaan baad aragtay ka bannaan waad ku dhaqaaqday adoo hataa salaadii ku jira ayaad buuxisay. su-aal baa ku iman karto ma raggay khaas ku tahay? laa, dumarka hataa hadday tukadaan masaajidka ku tukadaan safka inay ilaaliyaan baa laga rabaa. idan safka hadday masaajidka ku tukadeen hadday gabadhu buuxiso safka ayadna way soo gelaysaa wey. waxaa ragga loogu halqabsanaya aqlabkooda ayaga masaajida ku tukada. idan waxa weeyaan fadliga ay leedahay arrintaas safka oo la buuxiyo oo khalalka iyo duldulaalka laga ilaaliyo iyo qiimaha ay leedahay tallaabada loo qaado qiimaheeday ku tusinaysaa. man sadda ninkii buuxiya furjatan duleel oo maaragtay safka ka bannaan meel bannaan bana allaahu allah u dhisahaya lahu asaga beytan guri filjannati baa uga dhisaya wa rafacahu kor buu u qaadaya bihaa maaragtay buuxitaanka uu buuxiyey darajatan darajo kor ugu qaadayaa. idan ikhwati filaahi waa camal aad u sahlan laakiin ajir cadiima wata. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qofku doonuu waafajiyaa. almuwafaqu man wafaqahu llahu subxaanahu wa tacaala. qofka muwafaqa waa qofka ilahay uu khayrka waafajiya wey. idan dad baan dan kan gelaynin safku inuu buuxo iyo inuu wax ka dhiman yahay aan dan ka lahayn, inuu duldulaal ku jira iyo in kale aan dan ka lahayn, halkaasuu keligii iska istaagi. lama raba sidaas. inaad ilaalisi baa lagaa rabaa sufuufta toositaankeeda iyo dulduleelkooda iyo waxaasoo dhan inaad buuxisi baa lagaa rabaa. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam shaydaanka ayaa soo gelahaya safafka maaragtay dulduleel ku jira sida ariga maqashiisa yararka baraarka ay meelaha maaragtay banbanaan ay usoo galaan oga soo dusaan buu shaydaanku meesha kasoo duso kasoo gelaya. marka inaad ka ilaalisaan ayuu nabigu yihi ka ilaaliya shaydaanku meesha inuu kasoo galo. idan waa arrin aad iyo aad marka runtii ahmiyadeeda leh inuu qofku safka ilaaliyo buuxiyo had iyo jeer sufuufta say u kala horeeyaana loo buuxiyo. safka u horeeya uu qofku buuxiyo, safka ku xiga haddana safkii hore wax ka dhiman yahay saf kale inaad binayso laguma ogolo. marka ahmiyada sufuufta ay leedahay
iyo sufuufta toositaankeeda ahmiyada ay leedahay iyo buuxiska sufuufka in la buuxiyo fadliga ay leedahay buu xadiidkaa ku tusinhayaa. ilahina subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa ahmiyadaas iyo mas-uuliyadda dareema, lana yimaado camalka khayriga ah ee sufuufta la buuxinaya. ilahina subxaana wa tacaala uu ku abaalmariyo jannada kuwa guryaha looga dhisayo, darajaadna kor loogu qaadayo. hal mar baa xadiidka lafdigiisa aan ku celinhayaa. alxadiiثu الثاني والتسعون can caaishaةa radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam man sada furjatan bana allahu lahu beyta fi اljannati warafacahu biha daraja rawahu lmaxamiliyu fi اlamali wاطabaraniyu fi اlawsط wاlxadiiثu صaxiixu ligayrihi. hada wsala allahu calى nabiyina muxamadi wعalى alihi wasaxbihi ajmaciin. wasalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu.